marka intaan u baahanayn isticmaalka u baahan shan day 5 noqoto 5 bismillah waxaan idin shashadii softwareka ArcGIS sidaan ugu soo doorsan karaa data intaan u gudbin inaan wadan ka soo goosto deegaan aan ka soo goosto gobol aan ka soo goosto degmo aan ka soo goosto qawale waa inaan ogaadaa sida aan ugu soo dari karo qaabna ayaan data ugu soo dari karaa softwarekan saddex qaab ayaan ku sheegayaa si aad ugu soo darsato data la'aan softwareka ma shaqayn kartid. marka koowaad waxaad tagi file baad tagi add data baad dhihi halkaas aad ku darsan kartaa add data. marka waxay ka dhigan tahay datada computerkaadii data kugu jirtay oo shape file ah ayaad keensan kartaa halkan wax ka baxsan laakiin ma keensan kartid. marka nasiib wanaag datadii halkan ay noogu jirtaa maadaama hore loogu isticmaalay laakiin haddii ayna kugu jirin halkan maxaad samayn connect battery directory computerkaada ay ku keenaysaa marka goobtii ay kugu jirtay hadday halkan ahayd halkan kaga soo darsan marka waxay u jirtaa desktop ArcGIS si wanaagsan halkan u jirtaa marka tan ku soo darsan lahayd wataas waan yeesuweynaa ilaa inta datada noo imanayso markaas hay'atan x ka dheh qaabkaas waa qaab waxaan kala sameynaynaa halkan idin muuqato halkaasaad click sameyn directory meeshii ugu geyn then this is another way sidana waa qaab kale marka remove qaabka saddexaad ee kuu sheegay waxaa weeye halkan baad iman catalog markaad raadiso halkan ayaad furi markaad furto laptopkaada wuxuu isku geynayaa locationkii aad ku save garaysatay fileka ayaad ku dhufan locationkii ArcGIS file kaas waad soo qaadi marka saddexdaa qaab ayaa lagu soo keensan karaa datada haddana waxaan u baahanahay maapkan idin waa maapka Ethiopia ee wadanka maapka deegaanada waan ku darsan karaa halkan sida ifod taasaan ku darsanayaa waa deegaanadii haddana sidii oo kale waxaan sameyn halkan tagi degmooyinkii waan ku darsan saddexa markaan saa u keenso tan maadaama saddexdan iska dhigan karaa oo deegaanadii waa samayn karaa yana laftarkeeda ayaan keliya iska bixin karaa hadda seen u select garan karaa ama aan kala duwan u samayn karaa u siin karaa deegaanada halkan waad ku dhufan taas markaad ku dhufato waxaa kuu soo baxay hal waad ka dhigi kartaa marka taas ku dhufan right click property deegaanada sad kale kala siiso right click property after property waxaa kuu soo bixi doonta shaashadaas ayaad isticmaali doontaa si aad kalarka ama magaca ama qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay maapkan aad sameyso tan maxaad sameyn maadaama tuu tahay name one Android apply
marka intaan ka bixin symbology tag symbology qaybta qaybaha kala duwan ee kalarka deegaanada ayaa ku sameynaysaa meeshaan dheer qaadna aade awaad okay markaas dan magacyada u baahanta magacyadii soo hesho waxaad sameysaa taasoo ku dhufaa right click picture magacyada deegaanada marka halkaasaan ku joojinaynaa